Jaaliyada Somaliyeed ku nool magaalada Cape Town ee dalka South Africa ayaa ka hadlay magacaabista gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Muungaab oo shalay xilkaasi loo magacaabay kadib wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud qaar ka mid ah dadkan oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa aragtidooda ku cabiray in gudoomiyaha cusub uu wax weyn ka bedeli doono xaaladda gobolka Banaadir gaar ahaan dhinacyada ammaanka horumarinta gobolka iyo isdhexgalka bulshada waxaana sidoo kale ammaan ballaaran u direen gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahna duqi magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan waxaan u arkaa inay tahay arrin fiican maxaa yeelay gudoomiyihii hore oo shaqo badan oo qabtay oo muddo dheer soo shaqeynay 5 sano iyo ama ka badanba in hadda ilaahay ku roon yahay dhiig cusub la keeno waa arrin fiican gudoomiyihii hore dabcan waxa waaye waa in loo mahad celiyo asagana sidii wanaagsan oo waddanka uga soo shaqeeyay intii oo hayay aniga 5 sano waddanka ma joogin laakiin waan la soconay Soomaalida waa markasta waa la xiriiray waddanka xaaladiisa waa la socday runtii shalay ku dhawaaqidii ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya waa taageerina gobolka Banaadir ninka loo magacaabay Muungaab haddii aan nahnay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool Afrika gaar ahaan Australia aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay waana taageerina والله magaca dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Cape Town qaas ahaan xaafadda Belville waxaan halkan uga hambalyeeynaa gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay gobolka Banaadir mudane Xasan Maxamed Xuseen Muungaab marka hore waxaan u mahad celinayaa ama aan hambalyo leeyahay ninkan jarnaalka la magacaabay jarnaal Xasan waxa mahad mudan ninka la yiraahdo Tarsan oo xaaladda meeshii ka soo qabtay halkan iminka la joogan soo gaarsiiyay marka waxaan leeyahay hambalyo jarnaal Xasan waxaan leeyahay hawlo fara badan oo culays ah ayaa ku hor yaala waxaan u baahan yihiin waqti badan iyo juhdi badan in la geliyo marka waxaan leeyahay garabkaaga ilaha galo waxaan leeyahay mudane cusub Muungaab cusub weynayna waxaan u arkaa in fiican inuu yahay hawshiisa ka baxi karo kan hore macnaha Tarsan inuu soo dadaalo waaye masha Allah waxaan rajaynayaa inuu shaqadiisa fiican waxaan aad iyo aad u hambalyeeynaa madaxweynaha Soomaaliya magacaabista oo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir Muungaab General Muungaab sidoo kale si lamid waxaan leenahay wuu dadaalay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir insha Allah taala waxaan rajaynaynaa midkan cusub hadda la magacaabay Abdullahi Maxamuud Amiin Abdullahi Qorshe warbaahinta qaranka Soomaaliya Cape Town South Africa